haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah, fiidiyogan ku diran yahay, fadlan ha fiirso. Kanuu dhacay habeenkii habeenada ka mid ah waxaan soo kacay xaaskayga oo hurdada hadallo ku sheegayso oo afkeeda furiya. runtii ma ahayn waxaas waxaa ugu bartay iyada. waana la yaabay, waana la cajabay inay bilowday inay habeenkii hurdada ku hadasho, laakiin iyada ayna sugin. habeenkaas waxaa ka soo qaaday inay wax ay iska yihiin. shaqadeeda ayaan soo aaday. runtii maalinkaasna shaqada aad ayaan ugu tahay ugu daalay. marka kafay ayaan iska cabay si aan madax u degsado. habeenkii waxaa la yaabay codad shuux ah, kadibna waa soo toosay. mise waa xaaskayga oo magac ku dhawaaqayso. magacaas magac qariib ah ayuu u leekaa. waxaanu go'aansaday subaxii hadda soo kacno inaan weydiiyo. magaca sheegtana wuxuu ahaa maxamed. markaa weydiiyey maxamed yuu yahay, iyada aad ayay ila yaabtay. waxayna i tiri ma aqaano wuxuu yahay, laakiin waxaa u sheegay xalay inay ku dhawaaqdo magacaas. runtii waxay tiri aniga wax kama oga magacaas. aniga waan fikiray waxaas dhahay laga yaabay in filmaantii shooyada iyo musalsalada ay fiirsatiin. habeenkii dambe sidii oo kale inay hurdada ku hadasha ayay bilowday, laakiin waxay sheegtay laba magac. waan yaabay magacyadan ee habeenkii markay jiifata sheegayso. runtii subaxii ayaa la soo kacay. waxaana weydiiyey magacay xal ku dhawaaqaysa. waxay tiri niyow waxaana ka aqaano malahan, mana ogi waxaa ku dhawaaqo. laakiin xalay ayayba ka dartayo 3 magac ayay sheegtay: maxamed, yuusuf, axmed. aniga magacyadaas waxaa go'aansada oo qariibka ah inaan Google ka weydiiyo. markii aan galay qadka aan bilaabay inaan Google ka weydiiyo, waxaa ii soo baxday magacyada ay sheegaysa inay yihiin dad isdilay, qaar isdaldalay, qaar kaniiniya cabeen sun ah, qaar dabaqyo iska tuuray. waa inta magac ay sheegaysa. waxaa la yaab ahna inay arrinkaas dhaceen isbuucyada u dambeeyay, ama kaagii fajacaya ugu noqotay arrinkaas. wax aa sameeya ayaana waayay. runtii waxaa isku dayay inaan ka qariyo, laakiin waa ka qari waayey. maalinka waa u sheegay in magacyada ay habeenku dhawaaqdo inay yihiin magacyo isdileen. runtii habeenkii xigay ayaa mid mucjiso ah, sababtoo ah Riyada waxaa ka soo baxay magacayga. aniga naxtin iyo marinin haweenkaas. waxaana la yaabay gacmihayga inay xariga daldalaad isku qabsadaan anigoona kontarool karin. 내가 포기하고 싶을 때도 나는 왜 기억나지 너의